Sir, thank you. Sir, what are you doing? Wait a minute. That's my money, sir. Wait. Oh, so sorry. Hey, mate. haddii aad maqli jirteen ama aad arki jirteen tuug ay duruuf ka muuqato maanta waxaad muuqaalkan ku daawan doontaan taajir tuug ah. ninkan odayga ah ee miskiinka ah isagoo iska fadhiya ayaa waxa uu imaanayaa ninkan aadka u labisan aabihiisna uu hantiilaha yahay kadibna waxa uu ka qaadanayaa lacag yar oo uu tuugsi ku helay. ninkii miskiinka ah isagoo yaaban ayuu ka daba cararay isagoo ku qaylinaya mudane lacagta aniga leh ee si dhig jalaq uma uusan siin waana uu ka dhaqaaqay isagoo galay hotel weyn uu aabihii lahaa. ninkii miskiinka ah ayaa ka soo daba galay hotelkii laakiin nin waardiyaha hotelka ka mid ah ayaa celiyey weydiiyena waxa uu rabo. markii uu u sheegay waxa dhacayna inta uu ku qoslay ayuu ku yiri adeer ciyaarta meesha ka daa mudanahan ha u gafi lacagtaada uma baahnay. dadku isku mid ma ahane gabadhan oo ka mid ahay shaqaalaha hotelka sheekadoodana aad ula socotay ayaa ku soo leexatay waxayna waardiyihii ku tiri aniga ugu soo wareeji kiiskan. gabadhii oo ayada lafteeda si fudud ku aamini weysay arrinta ayaa ku tiri ma hubtaa in ninka lacagta kaa soo qaatay uu isaga yahay? haa waa isaga $1 oo jeexan ayaan haystay wuuna iga soo qaatay ayuu ku yiri. gabadhii ayaa ku tiri okay waxaan baarayaa boorsidiisa. gabadhii ayaa bilowday qaabkii ay boorsidiisa uga fiirin lahayd $1 ee uu lahaa miskiinkan waxayna keentay khidad fiican. tuug taajirkii ayay u tagtay waxayna weydiisatay inuu sarrifo $10. boorsada ayuu kala soo baxay $1 ee jeexnaa ee uu ka soo xoogay ninkii miskiinka ahaa. gabadhii ayaa iyada oo yaaban waxa ay weydiisay halka uu ka keenay lacagtan tacbaanka ah isaga oo kibir ka muuqda ayuu ku yiri maxaa kaa qusay halkan ka keenay boolis miyaa tahay adigu? markay ogaatay arrintii ayay cod dheer ku tiri soo ceebkugu maaha in ninka miskiinka aad lacag ka soo xoogto. markaasuu uga hanjabay inay weyn doonto shaqadeeda isla markaana uu ku dacweyn doono milkiilaha hotelka oo aabihiis ah wuuna ku dacweeyey. booskii ayaa u yeeray gabadha weydiiyena waxa uu wiilkiisa sameeyey waxayna u sheegtay inuu lacag soo xoogay. booskii oo u maleeyay in qof martida hotelka ka mid ah uu lacag ka soo xaday ayaa wiilkiisa ku canaantay sumcad xumada kaga imaan karto arrintan kuna amray inuu raaligelin ka bixiyo arrintan. laakiin wiilkii oo isla quman ayaa aabihiis u sheegay in lacagta uu ka soo xoogay oday tuugsada ah. booskii ayaa intuu gabadhii ku soo jeestay ku yiri maxaa kaa qusay waxaan hotelka gudihiisa ka dhicin? laakiin mudane xatooyo waa xatooyo ayay tiri. booskii ayaana canaan kala duldhacay gabadhii daacadda ahayd wuxuuna ku yidhi wax kasta oo ka dhaca hotelka bannaankiisa inta aad shaqada ku jirto waxba kaama gelin. ninka aad u doodaysana haddii aad si dhaqsi ah bannaanka ugu saari weyso sidiisoo kale ayaad waddada ku tuugsan doontaa. gabadhii oo yaaban qasabna ku ah qaadashada amarka booskeeda ayaa isaga soo tagtay waxayna ku qasbanaatay in ninkii miskiinka ahaa ay halkiisa $1 siiso si uu meesha uga tago. $1 oo ay haysatay ayay dilaacisay oo ay kiisa u ekaysiisay waana ay siisay waxayna sidoo kale ka raaligelisay waxa lagu sameeyey. odaygii waa uu u mahad celiyey gabadhii laakiin waa uu diiday lacagtii isagoo ogaaday in aysan tiisa ahayn. intii ay wada hadlayeen ayaa tuug taajirkii mar kale arkay wuxuuna ku fikiray inuu mar kale ceebeeyo ninkan tuugsadaha ah bal eladaa waxa uu ku sameeyey. Thank you anyway. Hey, you. Whoa. I'm somewhere. Hey, what are you doing? What? We have to search him. I don't know what he's been doing unsupervised. I just been waiting for the receptionist. Yes, serious. I'm an honest. sida aad arkayseen waxa uu si aan la fahmin jaabka ugu geliyay boorsadiisa kadibna wuxuu yiri ninkan boorsada ayuu iga qaatay ee hal la ii baaro. markii la baarina boorsadii ayaa laga helay wuxuuna amray in booliska lagu waco. dhibaato kale oo hor leh ayuu dhexda ka geliyay miskiinkii waxaana isugu darsamay dhac iyo dambi been abuura oo dusha laga saaray. odaygii xaaladda ayaa ku adkaatay gabadhii isaga difaacaysay ayaana ka shakisay markaan waxayna weydiisay sababta ay arrintan ku dhacday. odaygii ayaa gabadha ku calaacalay uuna sheegay inuusan wax dambi ah ku lahayn arrintan. gabadhii ayaa u soo jeedisay inuu meesha isaga baxsado intii aysan booliska imaan laakiin odaygii oo isubay ayaa ka diiday una soo jeediyey in kaamirada qarsoon wax walba laga ogaan karo. gabadhii waa ay ku qanacday fikirkii waxayna soo wada aadeen xafiiska booska. aabbaha tuug taajirka oo isagana ah tuug boos kale bal eladaa waxa uu ku sameeyey. Mr. Johnson? odaygan tuugga ah ee milkiilaha hotelka ah isaga iyo wiilkiisa waxay ku heshiiyeen bahdilka miskiinkan. sida aad arkayseen waxa uu tiri muuqaalkii ay duubtay CC kaamirada taasoo laga ogaan lahaa dhagarta tuug taajirkan. gabadhii ayaa mar kale ka carootay waxa uu sameeyey mudanaheeda. intii ay murmayeenna waxaa yimid booliskii halkaas ayaana lagu xiray miskiinkii tuugsadaha ahaa. waxaa isku soo haray gabadhii tuug taajirkii iyo aabihiis iyaga oo qoslaya kuna dhaga hadlaya ayay gabadhii weydiisay sababta ay sidaan u sameeyeen iyadoo daartay codbaahiyaha weyn si dadka hotelka ku sugan oo dhan ay u maqlaan sheekadooda. tuug taajirka iyo aabihiis ayaana sir baxay iyagoo kashafa dhammaan dhagartii ay u maleegayeen odayga tuugsadaha ah mana ogeyn in sheekadooda la dhegaysanayo. sidoo kale waxaa sheekada dhegaysanayay askartii waday tuugsadihii. markay ogaadeen inay ceeb dhexda ka taagan yihiin oo ay fashilmeen ayay isku dayeen inay meesha ka baxsadaan laakiin nasiib wanaag booliska ayaaba ku sugnaa hotelka halkaas ayaana lagu xiray miskiinkii tuugsadaha ahna lagu sii daayay. saaxiibayaal muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. haddii aad ka hesho muuqaalka fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada kale. sidoo kale haddii aad ila dhamaysatay muuqaalka waad ku mahadsan tahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.